magacaygu waa Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen waxaan ka socdaa University TV su'aashan ku weydiinay madaxweyne waxay tahay haddii xanuunkaasi maado Ilaahay bay nooma keenay waxa ugu horeeya ee ugu yar ee dadku u baahan yihiin waa safe mask amaba waxa afka dahaarka markii xanuunkaasi soo baxay si weyn baa looga daadgureeyay deegaanada Soomaalida gaar ahaan Soomaaliland inta ogaalkaygaana magaalada Hargeysa uu aad buu ugu yiri dhinacii qiimaha 5 jeer ayuu libilaam maalkaas safe maskaasi wasaaradda caafimaadka iyo xukuumadda arintaasi maxaa uga qorsheysan oo ah arinta ugu horeyso hadduu yimaado alla ma keenay dhibaatada ugu horeysa ay timaado ay waxa wi ama ugu horeysa talaabada la qaadi ay tahay waxa ka meelaya Allah su'aasha hore ninka hore ma weydiista war maxaa meel iga inoo yaallay taala mugti wax rag la gacanta ku jira adilad maxaa ka meelaya Allah markii horeysay waxaan dhacay wasiirka caafimaadku waa kan maalintii aan reer ka furaayay ayaan isku diin maxaanu haynaa wax yar bay noqotay haddii ba wax lagu yimaado maalintaas aanu war maxaan iibsan karaa bal maaskii hala doon in baarkii market laga laayay moogtay isagoo 5 jeer qiimo laabmay qiimihiisa ilaa maantada dalkii u dambeeyay ay wasaaradda caafimaadku maqatay waayo waxaan u taray lacag saada dalku heli karaa lacag lagu badbaado lacag madaxda waxaynu haysaa ganacsada inaga waxayna waxa loo karaa qofka oo iibso bal horta in la helo mid iiba dalkii ugu waaweyn ka go'ay laakiin waan ku maqanahay ma aha imika dawladda caalamka waxna siiya ma nin wala iskaas badbaadin muxuu ku siinba kuwii loo qeyshanayay ayaan wala isaga yaa Allah taagay marka haddii aynu ayib iyo caaqibo ku helaan labadaba ku maqanahay ilaa maalinta wax yar waa la keenay oo public ku filayn laakiin imika waxaanu haynaa waxay dhakhaatiirta iyo dadka caafimaad ka shaqeeya waa la hayaa in ku filan iyo ku hawlgali karaan laakiin publicly hadaa sabab soo hebel ku siibsan active weli qof loo soo